sabti waxay awooda ilaahay sameeya unugi la koobo murahan soo maray sabti waxay awooda ilaahay sameeya unugi la koobo murahan soo maray waxaana aniga ishilin afarteeda waxyad qabyo kama idlaate waxaana aniga ishilin afarteeda waxyad qabyo kama idlaate anigiyo ayankay ubax waxaan sidanaba annalos oo cashaqa 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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan halkan waa telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xaruntiisa magaalada Burco Khadrad Daahir Cige oo ah hobol caan ah oo dadka afka Soomaaliga ku hadlay aad iyo aad u jecel yihiin fankeeda ayaanu halkan kula kulanay maadaama ay Burco timi waxaanu jeclaysanaa waraysi yar oo kooban ka qaadno Khadra ku soo dhawow Burco iyo TV-ga qarankaba waxaan doonayaa su'aasha ugu horeysan doonayaan ku weydiiyo waxa weeye safarkii kan kuugu xigay aad maanta Burco ku joogtaa xilli maaha wuxuu ahaa safarkii iigu xigay 1986 marka maxaad wada Burco timi waxaan wadnay riwaayad looran jiray waa masiibadu adduunyada iyadoo macallin iyo maadiis inay mid ahayd baan maray xag koonfur baan sii soconay markaas ay ugu dambeysay ujeedada safarkan aad maanta Burco ku joogtaa muxuu daaran yahay wuxuu daaran yahay Burco waa meel aad iyo aad taariikh weyn u leh Burco waxa ka yimid dad fanka aanu saaxiib ahayn oo qaali ahaa oo kaalmaha ugu waaweyn ku jiray ayaa halkan deegaan ahaana ka yimid dad ahaana aan ku wada joogi jirnay isku baranay fanaaniin waaweyn baa ka timid wallahi iyo xusuuso badan oo ay Burco leedahay horumarkeeda wadankii burburi ka bacdi isbedelkii Burco ay noqotay waxaas oo dhan inaan arko iyo oo dadkeedii aan la kulmo bal wixii ay garanayeen wixii aan garanayo daad u kala gacay weyn bay keenay Burco aan jecelahay Burco laakiin shakhsiyan maxaad ka aaminsantahay Burco wax badan baan ka aaminsanahay waxaan ka aaminsanahay Burco waa magaalaha ugu geesiyada horta la yiraahdo koow hobolada heesaha oo diintiina ku darsatay diimkana diintii ku darsatay oo horumar kale ku darsatay oo xoogaa yar yar oo marka sport baa yara buuqooda mooyaan maqla mooyaane inta mooyaane Burco waxay ku jirtaa waxa ugu horeysa gobolada horumarku ka jiro ee dadka fiican leh ee hal door kale bay ku jirtaa Burco xilligii fanku ahaa xilligii fanku lahaa qiimaha iyo qiyamka ee fanka la qiimeyn jiray Khadray ma jiraan heesahaaga heeso kamida oo hirgalay oo kaydka fanka Soomaalida kamid noqday aad xasuusato heeso macna heesiyaan qaadi jiray wallahi de anigu horta waxaan qaadaba aad bay u fiicnaayeen dadku saasay yiraahdaan dooqooda waxaad moodaa heesaha qaarna ana isu qaadi jiray qaarna bulshada lahayd marka inteedii intooda marka la isku daro wallahi dadka dareen way wada siin jireen
su-aasha ku xigtaan doonayaan ku weydiiyo waxa weeye abwaanka kuugu badan ee heesaha kuu dhiibay waa kuma ma xasuusta abwaanka iigu badan waxa weeyaan xasan xaaji cabdilaahi xasan geni cabdiqays dacar intii aan riwaadahooda dhigay huryo allahumma salli calaa maxamed de horta mustafa sheekh cilmi idaadu way badnaayeen maxamed cali kaariye soo leeyahay way kala badnaayeen xasan baa ugu riwaadahan dhigay ugu badnaa allah ayuu fogayday nafta meelan kala foqay in dhibaato igu filan faraqan ku haystay wali faalki caashiqu igu soo fadhiyay maran xalay tafalada waaya ku foofan sadeeduuyada فرحي جعلك نور سيابي فرحي جعلك رحت كودا مقنيو بسميت انتاني يسيب فرطو فوق ولبيتني ولفالك عشق ما يغسوف يا هيوني صوت بدك يا هيوني ما يغسوف يا هيوني dadka laakiin aaminsan in huryo heesaha ugu badan uu ku dhibay iyaga ka waran maxaad ku qancaysaa waxaan ku qancinayaa suugaan fara badan oo abwaanintaasi ii dhiibtay waxaad moodaa inay ka taabasho badan yihiin ama ka dareen badan yihiin in yaro huryo ii dhiibay marka dadku badanaa waxay ugu maleeyaan in huryo heesaha sameeyey waxa weeyaan aad bay dareenkooda u taabataa laakiin abwaanintooda qaaliya weeyaan huryo waa abwaanka ugu heesaha yar ee qaado weeye heesaha la qaado guud ahaan iyo gaar ahaanba waxaad moodaa in kuwa haatan maanta jooga ee fanaaniinta ah iyo inay idinka marka qalabka laga hadlayo inay idinka horumarsan yihiin laakiin inaad idinku xilligiinni ka tayo fiicnaydeen xagga wax soo saarka oo bulshada aad saameyn ku reebi jirteen ayaa la sheegaa maxaa sababay bas waxa weeyaan horta waxa sababay baan u malaynayaa anigu horta saan aaminsanahay dadkii xilligaa fanka joogay fanaaniinta waaweyn ahaa hadday heli lahaayeen xilligan qalabka jira ama casriyeyntan jirta dee wax kale mala ahaan lahayn anagu rikood yaroo philips la odhan jiray ama sanyo la odhan jiray ayaan cajalada ku daari jirnay mikrofon xataa kuma aanan duubi jirin halkaa iyadoo taal ayaa lagu duubi jiray waxaanay ahaayeen wax dee xilligaa casriguunu ah laakiin dhalinyarada imaku way haystaan qalabkii way haystaan xilligii casrigii wixii baa technology oo dhan way haystaan laakiin tayadii waxa ka maqan fanku lahaan jiray ayaa ka maqan tayadaas oo ah waxa weeyaan inuu qofku miisaamo heesta u qaadayo
codkeedii muusigeedii midhaheeda inuu qaadayo miisaamo waxaan maxay yihiin laakiin haddii la iskaga kiciyo tayo ma yeelanayaan waa tahay intii kadib burburka waxay sama koobi 9 wixii ka dambeeyay haa waan qaaday riwaayado aan ku dhigay Ingiriiska markii aan tagnay 9 baan anigu Ingiriiska tagnay anagoo koox ah oo 17 qof ah fanaaniin halka isku dhiibtay ilaa imka sidii baan u deganay halka bariga riwaayadaan dhignay loorin jiray riwaayadaan ka dhignay waxay ahayd waraabihii gabgabla waagii baa ku gudubtay waxba nagamay dambeyn dawladda markaa burburkeedii markaa way jireen heesaan qaaday iyo riwaayadaan dhignayba iminka Khadra Daahir Cige heesa fara badan bay leedahay hablo fanaaniin ba jiro dunida meel walba jooga heesahaaga waa la qaadaa adu reed koobiga iyo xuquuqda gaarka ah fanku leeyahay maxad Khadra ka aaminsantahay waxaan ka aaminsanay horta copyright waxa weeyaan wax international weeyaan laakiin dadkeenu kuma dhaqmaan mana yaqaanaan anigu see Khadra ahaan anu waan u fasaxayba kulligin qaado baan ilaahdaa because anigu imika fankiina kuma jiro oo waan ka haray marka wixii de ka faa'iideysanaya ummadda uga sii faa'iideynaya ha qaadaan baan gartoodayada la isoo dhigaa arjiyo aqoon afrikada baxshay gartoodayada la isoo dhigaa arjiyo aqoon afrikada baxshay كودعين المضود رباصتي شصعب كمري كودعين المضود رباصتي شصعب كمري يا ذهب كلك على ضيقون كيدك تموقع بحي يا ذهب كلك على ضيقون كيدك تموقع بحي نفتن 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 كو اوغالي fanka marka laga hadlayo in iminka fanaaniinta jirta wuu heesa Khadray bil ama sanad ba heesiisu shaqeeyaan fanaanku saaxadu ka baxa adoo Khadraana wax laga yaabaa boqo inaad konton sano aad fanka ku soo jirtay boqo inta dambe dadka dambe adhaxdeena ka iman doonaan ay si manaafacaadsan doonaan duugoon fankaas maxaa sababay waxa sababay waa tayada aan hooyo ku sheegayo tayada qofku maartay dhadhanka imaka heestii dhalinyarada dambe waxa laga yaabaa hees ajalad ku maqnay inuu iska dhageysto dabeedna duubo ama adigoo kale oo abwaan oo leeyahay waxbu sheetiriya inuu ku dhaamada ii qor marka haddaad adigu markaa iska tiraahdo waxba ma tirisid haddaad caynka iska tiraahdo oo markiiba organ la doonto ama kama la doonto tayo ma yeelanayo laakiin annaga xilligayagii markuu yiraahdo abwaanku danteeni murugtay baan maxaad ku huluuqaya in kalmada ka qoro ayaan eegaya waxaan leeyahay danteeni murugtay ayaan maxaad ku huluuqaya markaan nuska tiiriyaba maxaad meel ugu gubtaa oo moodsiska kuugu wacan markiiba way taabanaysaa in tayo leedahay ayaan arkayaa marka waxa ka maqan dareenkii ay ku kala shaandheen lahayn laxanku macna ma wuu sameeyaa midhaha fiican laxan fiican bay helaan midhaha xun laxan ma helaan marmar laxan macaano yimaada wuu jiraa waan midho lahayn laakiin laxanka iyo midhuhu way iswataan wuxuuna weyday isleeyihiin Khadra aad u mahadsan qorshe lagu horumarinayo fanka ma ku tala jirtaa maadaama dhalishaas ay noqoto wallahi inaan waxaan ku tala jiraa anigu inaan dee tusaale guud siiyo mooyaane maaragtay imaka wax xagga fanka u soo jeedsigiisa iguma jirto laakiin de talo waan siiyaa talo waan dhaasaa yeela fanku waxyaabo badan oo kayd ku noqon karaa jira waxaa jira akhlaaqda ka mid ah dabeecadaha ka mid ah bulshada dhaqanka ka mid ah wadan jacaylka ka mid ah ya in Khadra adoo wali ku sii jira fanaaniintii aad la soo heestay ee hobolada ahaa ee caanka ahaa
ma jirin hobol aad xiisan jiray codkiisa ama fankiisa way jiraan fanaaniintii horta kama wada gaadhayo laakiin aad iyo aad baan u salaamayaa shamis abakur guduuda caruw ha ugu horeyso ha ku xigto hibe maxamed sahre axmed aamine cabdilaahi xirsi qamar cabdilaahi saynab xaaji cali baxsan saynab ciga maxamed de intii dhimatay mooyaane inta nool waan wada salaamayaa raggana dee rag badan oo khatara ayaa jira macalinkayga saalax qaasim baa jira axmed cali cigaal baa jira xasan aadan samater baa jira allahu naxariista maxamed cabdikariin cismaan maxamed cabdikariin oo kale way fara badnaayeen maaragtay kuluc oo hadda isaguna dhowaan dhintay adigoo way jiraan dee rag badan cabdifataax yare miyaad taqaana ninka cabdifataax la yidhaha nabdigay adiga ku nagaade waayo mudalay dabbeeriya waxaad tahay naftayde markiyaan naruuroyna siyaay ku guursaday mar nabad galyaanidhi iyo noolin kulantii nabdigay adiga ku nagaade waayo dabbeeriya waxaad tahay naftayde markiyaan naruuroyna siyaay ku guursaday mar nabad galyaanidhi iyo noolin kulantii weli maanayayrin niyadaydu waa taam neecaw jacayliyo nafis baan dareemo weli maanayayrin niyadaydu waa taam neecaw jacayliyo nafis baan dareemo waa nuur calaa nuur waa nuur calaa nuur waa nuur calaa nuur waa nuur calaa nuur muhashada dareenkii caashaqo mutaystaa muhashada dareenkii caashaqo mutaystaa muujada kalgacalkana aan soo noqotay ikraan maylahaysaa ikraan maylahaysaa muujada kalgacalkana aan soo noqotay degan maylahaysaa ikraan maylahaysaa waxaan doonaya khadar in su'aal kale ku weydiiyo adigu markaad khadrad daahir tahay caruur waxa laga yaabaa inaad leedahay ma jeceshan caruurtaasi ay kaalintii aad adigu maanta aad sii banaynaysa ay buuxiso fanaaniin ay noqdaan ma la jeceshay wadka maya lama jecel wallaahi ma garanayo laakiin caruurtaydu horta way wada cod xun yihiin caruurtaydu ma heesi karaan mid baa ugu dhawaayo wuxuu odhan jiray muusikaan baranaya kiina ilaahay baa ka joojiyey laakiin anigu waxaan jeclaa caruurta inay wax kala barato oonay fanka baranin ayaan jeclaha su'aal aad u xasaasiya oo aan maxay ahayd tooy aan wax kooga waxa jirtay riwaayad la odhan jiray farxadi waa naxdin riwaayadda waxa la yidhi waxa curiyey nin la yidhaahdo cali caataye inaad ka cudur daaratay baa la sheegay adigii hobol kale markii dabeedna kaalintaas la buuxiyey arrintaas suuqay taallaa farxadi waa naxdin suuqan su-aasha kaaga soo dhex qaaday dad baa yani waan weydiinayaa khadra si ay idin qanciso ma jirta riwaayad ka cudur daaratay adigu iyo hobol kale oo aan dhigi lahaa halkan ku dhigi lahaa wallaahi inta ma xasuusto wallaahi ma xasuusto cali caateeye macali caateeya iyagan janal daawudaha may ma jirto riwaayad cali caateleeyo dee farxadi waa naxdin la dhawo ma xasuusto wallaahi ma xasuusto inta badan marka da'daadana kale la gaaro khatray waxaanu ka warqabnaa inay dadku abwaanin noqdaanba adigu khadra wax ma curisa anigu wax ma curiyo laakiin afreyda marmar baan ku tuura xaalku markuu xun yahay oo dhan waan ku tuuraa laba mid waan ku tuuraa laakiin ma jiraan heeso soo baxay oo aynu ognahay maanta
maya wallaahi dacid wamaan dhiibine gabay yaroo iminka inagoo kaloo asxaaba aynu isu tuurno mooyaane oo hebelka intaan jiradaan iyarku yidhaahdo mooyaane waxaan ku talagalay in la qaado may dhicin weli ma jiraa fanaan heesaaya oo aad jeclayd fankiisa inaad la heesto oo aanad la heesin haa waxaan ku xusi karaa ismaan maxamed lamaan heesin maxamed axmed kuluc inkastoo aan dee koobel kula heesay haa laakiin markii yaraantaydii dee original riwaayad ahaan maaragtay baan la heesin qalin loo kale lamaan heesin allahuma salli calaa maxamed odayaashii dee waaweynaay hore badankoodii maan la heesin khadray heeso fara badan baad qaadaa ma jiraan heeso aad isla hay waad ilowday mise waxaagii oo dhan maanta maskaxdaad ku haysaa wallaahi qaar badan baan ilowsanaa oo aanan garan karin oo marka la shido uunaan gartaa waa kaa dusha kama wada garan karo xataa intay yihiin ma garan karo 4 5 6 10 ka horeeya waan soo qabanaya laakiin wixii ka dambeeya way la rafataa khadray gabagabadan ku jirna abwaan maxamed cali kaariye heeso fara badan uu leeyahay baad qaaday nin nooceeya buu ahaa abwaankaasi waa nin la yidhaahdo waa dhakhtarka jacaylka bal arrintaa ka war maxamed cali kaariye ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo maxamed cali kaariye wuxuu ahaa dhowr qof oo isku jira ayuu ahaa horta nin dabeecad wanaagsan buu ahaa nin wuxuu ahaa maaragtay raxmad badan buu ahaa wuxuu ahaa nin suugaan fiican leh oo macnaha dhakhtar buu ahaa saaad u sheegtay dhakhtar ayuu ahaa maxamed cali kaariye jacayl runa baa hayay jacayl runuu ka heesi jiray waxaa yaal wixii markaa jacaylkaa iyo dareenkaa qabay oo dhani maxamed iyo iyagu isku dariiq bay ahaayeen heesihiisii ugu dambeeyey allah u naxariistay markuu dhimanayay na waxaa ka mid ahaa anigu aan qaado dardaaranku waa sadweyn hees la yidhaahdo ayaa ka mid ahayd reerkaaga deganaansho iyo dulqaad baa lagu dhaqaa haddii dambi uu dhacana indhaha waa laga dataa haddaad se ku daya tidhaahdo qoyskiina halkaa ku dumo adiga doqonnimada markaa wuxuu ahaa iyo raggii madiga ka hadhayo heese macaan buu aniga ii dhiibay runtii ninkaasi nin macaan buu ahaa ilaahay ha u naxariistay